ma haysatid dhaqaale kugu filan waana xaqiiqo inaad u baahan tahay dal aysan noloshiisu qaali ahayn waxna kama ogid magaalooyinka ugu nolosha jaban dunida oo dhan gaar ahaan guryaha daryeelka caafimaadka iyo dhammaan qarashada ku baxaya safarka iyo cuntadaba ila bogo muuqaalkan si aad u barato dalalka ku noolaan kara jabiruhu ee noloshoodu ay raqiiska tahay marka hore subscribe saar channelka Warsan Media Group gambaleelkana furo sina share garee si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adiga oo kala ah Las Vegas Bolivia waa mid ka mid ah wadamada ugu maciishada jaban ee lagu noolaado wadamada dhaca koonfurta America taasi oo ka dhigaysa meel ku haboon in lagu noolaado oo la booqdo gaar ahaan magaalada Las Vegas oo leh dhammaan adeegyada laga maarmaanka ah ayaa soo jiidata dad badan sabab la xiriira qiimaha jaban ee nolosha waxaad magaaladaasi kireysan kartaa guri leh wax kasta oo aad ku helayso inta u dhaxaysa $500 ilaa $600 bishiiba magaaladaasi Las Vegas raashinka iyo cabitaankuba waa ay ka jaban yihiin oo waxaad si fudud uga heli kartaa wadooyinka waxaadna booqan kartaa meelaha soo jiidashada leh sida harada Titicaca iyo barxadda milixda leh ee dalkaasi gudaha Bolivia meel kasta oo ay ku jirto magaalada Las Vegas safarka dhanka hawada ah ayaa ah mid aad u jaban waxaadna diyaarad ku raaci kartaa wax ka yar $50 bishiiba dad badan oo dalkaasi ku nool waxay isticmaalaan diyaaradaha oo ay ku safraan waayo waa raqiis balse haddii aad u baahan tahay inaad marto dhulka oo aad isticmaasho basaska iyaduna waa mid ku furan oo qiimaha basaska lagu raaco waa mid aad u jaban marka loo eego diyaaradaha Bulgaria waa mid ka mid ah wadamada reer Yurub ee loo arko inay aad u maciishad hooseyso magaalada Sofia gaar ahaan waxay leedahay dhammaan adeegyada laga maarmaanka ah balse waxaad adeegyadaasi ku heli kartaa qiimo la mid ah kan qaaradda Afrika ama Latin America wax kasta waa raqiis noloshuna waa ay jaban tahay waxaad maalintii oo dhan ku noolaan kartaa wax ka yar $20 waxaadna heli kartaa wax walba aad u baahan tahay hase yeeshee ma ahan wax fudud tusaale ahaan lacagta aad ku noolaato magaalada London qiimaha diyaaradaha lagu raaco Sofia ilaa magaalooyin kale ee dalkaasi ayaa ah mid jaban oo sahlan dalkani waxa uu leeyahay meelo badan oo soo jiidasho leh oo loo dalxiis tago sida wadamada kale ee caalamka balse haddii aad rabtid inaad ku noolaato Yurub oo qarash yar kugu baxo waxaad aadaysaa magaalada Sofia ee dalka Bulgaria Bangkok dalka Thailand wuxuu ka mid yahay wadamada ugu caansan dunida oo loo dalxiis tago waa dalka kaliya ee leh dalxiisayaal aad u badan Bangkok oo ah magaalo aad u dad badan ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu nolosha jaban caalamka oo dhan magaaladaasi waxay leedahay qaybo isboorti oo badan tusaale ahaan Moai oo caan ku ah ciyaarta feerka waxaad hal saxan oo cunno tayo leh ah oo isku dheelitiran ku heli kartaa wax ka yar $1 magaaladaasi Thailand waa wadan caan ku ah ciyaarta feerka dadkuna waxay jecel yihiin feerka iyo aflaamta tigidhada lagu daawado ciyaarta feerka ayaa qiimahoodu ka yar yahay $10 halka Mareykanka ama Ingiriiska aad halkii ciyaar oo feer ah ku daawan kartid inta u dhaxaysa $100 ilaa $200 meelaha qaar haddii aad nasiib badan tahay waxa laga qaadayaa $50 oo aad ciyaar aan xiiso badan lahayn ku daawan kartid Quito waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan koonfurta qaaradda America hase yeeshee waa ay fududahay in lagu noolaado waayo waxa aad u jaban qiimaha maciishada meel kasta waxaad ka heli kartaa wax waliba iyaga oo qiimo jaban dhammaan adeegyada laga maarmaanka ah waa ay fududahay inaad aado meelaha loo dalxiis tago sida Amazon kaymaha daruuraha buuraha dhaadheer iyo xeebaha dalkaasi iyo xitaa jasiiradaha adiga oo kugu baxayo qarash aad u yar oo aadan malaysan karin qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee Quito ayaa ah mid aad u jaban waxaana baabuur ku raaci kartaa wax ka yar $1 adiga oo ku tagaya meel kasta oo aad u baahan tahay Vietnam caasimadda Hanoi waxa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada ugu nolosha jaban adduunka oo dhan waxay dhacdaa koonfurta bari ee qaaradda Aasiya waana caasimadda dalka Vietnam oo leh taariikh soo jireen ah waxa ku yaal dhismayaal xiiso leh waxaana laga helaa cunooyin badan oo dabiici ah oo meel kasta ay fududahay inaad ka heshid Hanoi waxaad ka heli kartaa dhammaan adeegyada laga maarmaanka ah waana meesha qofka doonaya nolol jaban uu ku noolaan karayo qiimaha lagu kireysto guryaha magaalada Hanoi wuxuu laba jibaar ka jaban yahay kuwa wadamada reer galbeedka
inkasta oo ay jiraan guryo heerkoodu sareeyo. Wadamada ugu wanaagsan ee lagu noolaado ama la booqdo dad badan ayaa eegaya wadamo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Faransiiska, Netherland iyo kuwa kale. waxa ayna ilaaween in qiimaha jaban ee nolosha Bulgaria ay ka dhigayso dalka ugu wanaagsan ee lagu noolaado marka loo eego wadamo badan oo reer Yurub ah. Mahadsanid daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan share garee.